Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawade ama dhegeyste ma taqaanaa micnaha magaca alle ee Almaalik? Almaalik waa milkiile aan lala wadaagin wax walba oo samada iyo dhulka ka jira, isaga ayayna milkigiisa yihiin, naf, maal, awood iyo xukunba. Almaalik waa kan wax xukuma, awood buuxdana u leh xukun walba. Waa boqorka boqorada, kan aan cid kale la sinaan karin xukunkiisa. Almaalik waa mid adag oo cadaalad badan, mana jirto cid ka hor imaan karta. Almaalik waa kan wax u qaybiya siduu doono, wuxuuna addoommadiisu siiyaa wuxuu doono, sida risqi, nabad, cilmi, aqoon iyo hanuunba. Cidna kama hor istaagi karto wuxuu addoonkiisu u qadaro. Markaad ogaatid micnaha dhabta ah ee magaca alleh ee Almaalik, waxaa kuu kordhaysa kalsoonida aad alle ku qabtid subxaanahu wa tacaala. Sababtoo ah markaad ogaato in wax walba milkiilahoodu yahay alle subxaanahu wa tacaala, waxaad dareemaysaa deganaan. Qofna ma qaato wax adiga laguu qoray, adigana wax aan kuu qornayn ma helaysid. Sidoo kale markaa si fiican u fahantid micnaha magaca Almaalik, waxaa qalbigaaga ka baxaysa cabsida badan aad ka qabtid addoomaha alle. yacni cabsida aad ka qabtid bani aadanka. Almaalik waa kan xukuma wax walba. Haddii aad isaga ku tirsanaato noole aad ka cabsanaysid malahan, si kasta oo ay xaaladuhu kaaga xumaadaan. Markaad magaca alleh ee Almaalik ku ducaysatid oo si yaqiin ah iyo daacadnimo aad la timaadid, khayr iyo barako oo dhan ayaa ku soo raadsanaya. Sababtoo ah alle waa milkiilaha runta ah, waana boqorka boqorada aan laga boqorsanayn.